يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقدii lixaad ee darsigeennii fahamka soonka waxaynu joognay qofkii shardigii labaad ee ahaa qofka waxyaabaha mufatiraadka ee soonka jabiya. soonka waxay jabinayaan inuu qofku yahay qof xusuusan waxaana inuu yahay naaqid soonkii burinaya. haddii marka qofkii wax cuno ama wax cabo isagoo sooman oo halmaansan waxa ay noqonaysaa soonkiisii waa saxiix. rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhطa'naa, rabbiyow ha noo qabanin haddaanu ilowno ama aanu gefno. ilaahayna wuxuu yidhi qad facaltu waan yeelay. xadiidka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baa u daliila. abu hureyre uu warinayo man nasiya faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa acamahu allahu wasaqaah. qofka halmaama oo cuna isagoo sooman oo caba soomkiisii ha dhammaystirto, ilaahay baa quudiyo waraabiyey buu nebigu yuri sal alla alay wasalam. riwaayad baa jirta daara qudni uu soo saaray oo saxiixinayo fainamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayhi walaa qadaa'a calayhi. waa risiq ilaahay la soo doontay oo qofkan u soo kaxeeyey oo ilaahay ku quudiyey oo siiyey, qadana laguma laha. haddii marka uu qofku arko qof kale qofkan halmaamee wax cunaya wax cabaya, haddaad aragto inuu halmaansan yahay inay kuu muuqato, waxaa laasim kugu ah ama waajib kuga inaad xusuusisid. waayo nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi allah subxaana wa tacala wuxuu yihi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. waxyaabaha la isu kaashanaya ilaahay buu ka hadlay subxaana wa tacaala. isu kaalmaysta samafalka iyo khayrka iyo wanaagga iyo alla kacabsiga. xumaanta iyo dembiga iyo ismiga isu kaalmaysana buu alih subxaana wa tacaala. asal waxaa ah arrintaasi inay munkar tahay. qof soomana wax cunaya, qof xilli soona wax cunaya, ilaa cudurdaarkiisa la ogaado hadhow markuu hadlo in marka munkarka la zuuliyana waa shay muhiim ah. shardiga saddexaad waa inuu qofka kan isagu ikhtiyaarkiisa waxna ku cuno waxna ku cabo, cidina aanay khasbin. haddii qofkii soomanaa uu sameeyo wax ka mid a waxyaabaha mufatiraadka ee lagu afurayo hadduu sameeyo, ikhtiyaarkiisa iyo iraadadiisana aanu ku samaynin, soonkiisu waa saxiix. maalan waaba loqloqu isiri isagoo weysaysanaya, ama wuu cadayday oo wuxuu isiri loqloqo oo cadayga burburkiisii iyo wixii aad ka cadayatay afka ka loqloqo, ama wuu weysaysanayey biyihii baa ku siibtay oo calooshiisa iyo baatinkiisa u dhacay isagoo aan ku talagelin, soonkiisa waa saxiix. waxaa la mid a qofkii haddii uu ninku xaaskiisa khasbo ramadaantii oo ay abhisoota war ilaahay ka yabaa soomana hidaa waa ramadaan war miyaan alla ka baqayn, dabeetana uu maxaanku idhaahdaa arrintaa ka diido oo soonkii hawshaa markii jimaaca ahaayee soonka jebinayay oo waxyaabahaas afuriya shayga ugu weynna ah uguna khatarsan ugu dembiga weynna ah oo gabadhii iska celin kari weydo, soonkeedu waa saxiix. waa iyadu maxaa yeelay may doonaynin wuu khasbay. waxaa u daliila aayadda qur-aankeed ilaahay markuu ka hadlayay subxaanahu wa tacaala qofkii mu'minkaa iyo iimaankiisa inuu ku kufriyo lagu khasbay. waatu alla laha man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inun biliimaan. marka qofku dee haddii isagoo mu'min aha la khasbo la yidhi naftaa lagaa goynaya ama dee wax gaalnimaha ku hadal ama diinta ka bax, naftiisa waa ku badbaadsan karaa hadday xaqiiqa tahay in nafta ku waayiyo. haddii marka qofkii soomanaa ee saa'imka lagu khasbo wax afurinayo afurkii ah, ama qowl ficil ha noqdo la sameeyo wax la cunayo wax la cabayo, ama ficil macaanku la samaynayo oo galmo iyo wax macaankaas lagu khasbo, isaguna aanu doonaynin, waxay taasi tilmaamaysaa soonkiisu inuu saxiix yahay. waxyaabaha ma'kuulaadka la cunayo ama mashruubaadka la cabayo hadday uurka u dhaadhacaan, iyadu maxay noqonaysaa? wax walba oo horta qofka calooshiisa u dhaadhaca oo cunto ah oo cabitaan ah oo waxaasi ama qofka afka ha ka tageen, waxaa lagu tirinayaa wax mufatir ah oo soomkiisa qofkaasi jebinaya. lianna waxaasi ha yaraadeen ama ha bateen, wax xalaala ha noqdeen, wax xaaraana ha noqdeen, wax waxtaraya ha noqdeen, waxaan waxtarayn ha noqdeen,
xitaa haddii uu shay calooshiisa geliyo oo sanka uu ka isticmaalo afka uu yidhaahdo waxba ka cuni maayo laakiin sankaasaan ka isticmaalaya oo tuubaya iska geliyo oo caloosha u dhaadhiciyo kalakl washurbi bay la mid tahay soonkiisi waa ku jabaya. sidaa awgeed baa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiidkii laqiid ibnu sabura ee weysada ka hadlayay wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman, ku xeel dheerow markaad weysaysanayso biyaha sanka aad raacinaysa aad kor u raacinayso sanka, biyaha aad ugu xeel dheerow inaad sooman tahay mooyaane. waxaa laga taxadaraya oo laga ixtiraazayaa qofkii soomanaa haddii uu sanka biyaha ku baaciyo oo hore u raaciyo waxaa laga yaabaa sanka iyo dhuuntu way isu fureen calooshu iyo inay xaggaa u tallaabaan. marka haddii biyihii joofkii ay gaarhaan oo xagga sanka ay ka soo galaan soonkii way saamaynayaan. nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kamana nahyin arrintaasi, kama celin ku xeldheeraanshaha weysada marka la weysaysanayo sanka biyaha la raacinayo ilaa qofkii isagu soomanaa mooyaane. qofka arka marka qof soomana wax cunaya wax cabaya maalin ramadaan waajib waxaa ku inuu xusuusiyo xadiidkii nabigaaba u daliila faidaa nasiitu fadakiruunii, salaada markuu ka hadlayay haddaan halmaamo ixusuusiya buu nebigu yuri salawaatu ullahi wasalaamu calayh. insaankuna waa macduur wixii uu halmaamo oo nisyaan uga yimaado, waayo insaankani waxa weeyaan waa insaan daciif ah. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxyaabaha cilalka uu bani aadamka ku leeyahay waxaa laga dhigay in nusqaantiisa ka mid a inuu mid wax halmaamo uu yahay. sidaa awgeed qofkii kale waynu soo tilmaannay inuu xusuusiyo waa shay laga maarmaan ah. ayib waxaa ka mid ah sigaarka soonku waa jebinaya, waxyaabaha mufatiraadku ka mid. dadka qaar baa laga inay yidhaahdaan waa qiiqo wax la cunaya wax la caba ma aha, haddii aan dee sigaarka isticmaalo soonka ma jebinayo. soonkii waa jebinaya sigaarka haddaad isticmaashid oo cudurdaar uma aha soonka ka tegistiisa. sigaarkan ka soomi kari waayey ama sigaarka haddaan isticmaalo soonku ma jebinaya, sidee lagugu cudurdaarayaa inaad soon uga tagto shay macsiyo ah isagoo muxarama macsiyo ah shayga kan weeye. sidaa awgeed shaygii xalaasha ahaa ee muxtaramka ahaa baaba la yidhi qofku ha ka soomo shay muxaram ah oo macsiyo ahna in laysugu cudurdaaro maba dhici karto, waana shay mufatir ah. mufatiraadkii waxaa ka mid a bimacna alakl washurbi wax noqon kara. in sha allah xalqada xigtaynu kaga hadli doonaa. wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin. astawdicukum allah wasalaamu calaykum. منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار. مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار.